dagaalkii qaboobaa wuxuu ahaa colaad u dhaxaysay labadii quwadood ee adduunka ku loolamaysay muddadii u dhaxaysay 1945 ilaa 1991 waana Sofiyeetka oo hogaaminaya xulafadii Warsaw iyo NATO ee uu Mareykanku horkacayay intuu socday dagaalkii labaad ee dunida. Sofiyeetka iyo Mareykanku waxay ka mid ahaayeen isbahaysigii la dagaaltamayay Jarmalka, sidaas oo ay tahayna xaaladoodii waxay ahayd mid kacsan. Mareykanku wuxuu ka walacsanaa isfidinta midowgii Sofiyeet ee bariga Yurub dagaalkii labaad kadib. wuxuu dagaalkan qaatay magaca dagaalkii qaboobaa iyadoo ay sababtu tahay inaanu jirin dagaal si toos ah u dhaxmaray labada dhinac, inkastoo ay jiraan dagaalo muddo dheer socday sida dagaalkii Vietnam, kan Korea iyo Afghanistan oo ay labada dhinac dabada ka taagnaayeen. Dagaalkii qaboobaa wuxuu ahaa tartan u dhaxeeyay Sofiyeetka iyo Mareykanka ciddii noqon lahayd awoodda koowaad ee caalamka. Kadib markii uu istaagay dagaalkii labaad, wadamada reer galbeedka iyo Sofiyeetku waxay isu khilaafeen sidii laga yeeli lahaa dhulka Jarmalka. Hogaamiyihii midowgii Sofiyeet Joseph Stalin wuxuu kaloo rabay in magdhow laga siiyo dalkiisa khasaarihii ka soo gaaray dagaalkii labaad ee uu Jarmalku u geystay. sanadkii 1949 Sofiyeetku wuxuu go'doomin ku soo rogay magaalada Berlin. sababta uu Sofiyeetku go'doominta ugu soo rogay magaalada Berlin ayaa ah in wadamada reer galbeedku raali ka ahayn qaabkii loo kala qaybiyay xukuumaddii Jarmalka. go'doominta magaalada Berlin waxay socotay 11 bilood, waxay ka mid ahayd dhacdooyinkii ugu caansanaa ee dhacay muddadii uu socday dagaalkii qaboobaa. intuu socday dagaalkii qaboobaa waxaa daafaha caalamka ka howlay dagaalo lagu halaagsamay ayna sabab u ahaayeen Sofiyeetka iyo Mareykanka. dagaaladaas waxaa ka mid ah dagaalkii Korea. dagaalkii Korea wuxuu bilaabmay sanadku markuu ahaa 1950 kadib markii Kooriyada Waqooyi oo gacan ka helaysay midowgii Sofiyeet iyo Shiinaha ay ku dooshay walaalahoodii kale ee Kooriyada Koonfureed. duulaanka Kooriyada Waqooyi ay qaaday waxay si fudud ku qabsatay dhulkii Kooriyada Koonfureed. wixii markaas ka dambeeyay Mareykanka ayaa dagaalka ku soo biiray isagoo gacan siinaya Kooriyada Koonfureed, wuxuuna Mareykanku ku hanjabay inuu adeegsan doono quwadda atomiga ah haddii Sofiyeet iyo Shiinaha aysan ka bixin Kooriyada Koonfureed. dagaalkii Korea wuxuu socday muddo 3 sano ah, waana mid ka mid ah dagaaladii ay horintoodii ka dambeeyeen Sofiyeetka iyo Mareykanka. muddadii u dhaxaysay 1945 ilaa 1991 Mareykanka wuxuu tijaabiyay 1400 oo tijaabo nuclear ah. hubka nuclearka wuxuu noqday mid ay labadani quwadood ay isku cabsi geliyaan balse aanan la adeegsan. labada awoodood ee hardamaya marnaba dagaal toos ah isamaysan hor imaanin. inkastoo labada dhinac diyaar u ahaayeen dagaal lagu hobto, haddana cabsida ugu weyneed waxay ka taagneyd adeegsiga hubka nuclearka oo xilligaa labada dhinac haysteen, taasoo horseeday in labada wadanba ay iska ilaaliyaan wax kastoo keeni kara dagaal toos ah maadaama ay haystaan hubka sida ba'an wax u gumaada. sanadkii 1962 Sofiyeetka iyo Mareykanku waxay qarka u fuuleen inay dagaalamaan kadib markii midowgii Sofiyeet uu gantaalihiisii ridada dheeraa ee qaada madaxyada nuclearka uu geeyay jasiiradda Cuba kuna jeediyay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. mushkiladii gantaalihii Cuba waxay ahayd mid u dhowaatay inay sabab u noqoto dagaal weyne saddexaad oo dunida ka dhaca, kaasoo waliba noqon lahaa dagaal uu qayb ka yahay hubka nuclearka. mushkiladii gantaalihii Cuba waxay ka mid ahayd dhacdooyinkii ugu xamaasadda badnaa ee dhacay intuu socday dagaalkii qaboobaa. waxaan meesha ka marnayn tartanka hawada sare. intuu socday dagaalkii qaboobaa, Mareykanka iyo Sofiyeetkuba waxay tartan ugu jireen gaaritaanka hawada sare. inkastoo midowgii Sofiyeet uu guushii ugu horeysay ka gaaray gaaritaanka dayaxa oo ay ku tageen dayax gacmeed aan dad saarnayn sanadkii 1959 ayaa haddana Mareykanku wuxuu xaqiijiyay hawshii markii ugu horeysay dad lagu geeyay sanadkii 1968 xilligaas ay ku tageen dayax gacmeedkii Apollo. muddadii u dhaxaysay 1962 ilaa 1991 dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyay Sofiyeetka iyo Mareykanka wuxuu marayay xilligiisii ugu kululaa, isagoo mid kasta oo labadooda ka mid ah ay isku dayeen inuu kan kale kaga hormaro dhinacyada farsamada, saamaynta hawada sare iyo quwadda nuclearka. dagaalkii qaboobaa wuxuu ku caanbaxay dhacdooyinkii waqtigaas dhacay oo u badnaa dagaal dhinaca maskaxda ah, dacaayad, isbasaasid iyo sidoo kale tartanka dhanka tiknoolajiyadda ah. sanadkii 1989 dagaalkii qaboobaa wuxuu galay sanadihiisii ugu dambeeyay. waxaa gooni u go'ay jamhuuriyadihii ka tirsanaa midowgii Sofiyeet. xuduudihii ayaa isku furmay, darbigii Berlin ayaa dumay, dalkii hoggaanka u ahaa gaashaanbuurta Warsaw ayaa si kama dambeys ah u burburay. dagaalkii qaboobaa ee midowgii Sofiyeet iyo Mareykanka u dhaxeeyay wuxuu si rasmi ah u istaagay sanadkii 1991 kadib burburkii midowgii Sofiyeet.